Waxaa aad u soo badanaya qaar ka mid a dadka saameynta ku leh baraha bulshada ee ka qayb qaadanayo ololaha guriga loogu dhisanayo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo. Jilaaga caanka ee maxamed barasetamol ayaa xaqiijiyey in uu ku deeqay mashruuca guriga lagu dhisayo farmaajo adduun lacageed oo dhan 4,000 oo doolarka Mareykanka. Arrintan baraha bulshada ayay qabsatay mashruucan iyo qorshaha ku aadan in lacaga la sheegay in loo qaraamayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo si guri loogu dhiso, waxaana lasoo bandhigay akoono laga furay bangiyo kala duwan. Goorsii horreysay afhayeenkii hore ee farmaajo cabdirashiid maxamed xaashi ayaa sheegay in uu ka mid yahay guddiga ururinaya lacagta lagu dhisayo guriga, waxaana guriga la dhisayo uu ku tilmaamay in loola jeedo mahadsanid madaxweyne, islamarkaana uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo aqbalay. Laakiin dood iyo su-aalo adag ayaa ka taagan lacagtan loo ururinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. Dadka qaarkood ayaa ku tilmaamay qayb ka mid ah ololaha doorashada 2026 oo diyaargarow arrinkaasi ku aadan ay sii wadaan. Waxayse dad badan su-aalo ka keeneen inay jiri karto duruuf dhaqaale oo keeni karto in guri loogu dhiso lacago bulshada laga aruuriyey madaxweynaha muddaxileedkiisu soo dhammaaday, islamarkaana looga guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaaliya. Dad aan la dhacsaneen arrintan ayaa siyaabo kala duwan dhaliil ugu jeediyey, iyagoo sheegay in ay tahay tallaabo lagu sharciyeynayo lacago sifo aan sharci ahayn dalka lagu soo gelinayo. Jilaaga inta badan kasoo muuqanaya muuqaalada madadaalada iyo riwaayadaha maxamed barasetamol ayaa ka mid ah shakhsiyaadkii ugu dambeeyey ee arrinkan kaalmada ku aadan guri dhisidda madaxweynihii hore ee Soomaaliya si weyn uga qayb galay. Waxa uu sheegay inuu uga qayb qaatay dhismaha guriga aabaha ummadda Soomaaliyeed 4,000 oo doolar ka badan waa u qalmaa buu yidhi. Haddaba waxaa arrintan oo qaar ka mid a dadka baraha bulshada intooda badan adeegsado aad oo ay uga munaaqashanayeen, intooda badan waxay ku tilmaameen in aynan u baahneen in dowladda Soomaaliya arrintan si weyn loogu garab istaago, maadaama ay jiraan dhibaatooyin badan oo bulshada siyaabo kala duwan ay ku marayaan qaybo ka mid a Soomaaliya, taasina ay u baahan tahay in wax looga qabto. Haddana waxaa dhaqaale loo ururinayaa madaxweynihii hore iyo qof shaqaale rayid ka noqday Mareykanka, oo dadka qaar ay leeyihiin muddo aad u badan ayuu ku noolaa Mareykanka. Taasina waa midda aanu dadka intooda badan ka dhaadhicin. Haddaba afhayeenkii hore ee madaxweynaha Soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi oo isagu arrintan faahfaahin ka bixiyey lacagta guriga sida mutadawacnimada lagu dhisayo maxamed cabdilaahi farmaajo, waxa uu sheegay in fikradahan ay ka timid dhanka bulshada, islamarkaana uu madaxweyne farmaajo aqbalay soo jeedintaasi. waxaa kale oo uu soo bogaadiyey tallaabadan iyada ah oo uu ku tilmaamay mid taariikhi ah oo aysan ka dhicin in dal Afrikaan ah uu sidaasi sameeyo. Afhayeenka ayaa ka gaabsaday inuu sheego cadadka ilaa iyo hadda la ururiyey lacagahan loogu dhisayo guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya, kaasoo sidoo kale loo bixinayo guriga madaxweynaha shacabka. Dhanka kale waxa uu sheegay in dadka ugu badan ee soo diraya lacagaha ay yihiin qaar ka mid ah dadka wadamada dibadda ku nool. dhanka kale waxa uu sheegay in sidoo kale ay kaalintan ama kaalmahan ay gacan weyn ka geysanayaan ciidamada qalabka sida, si gaara isagoo tilmaamay inay ku bogaadinayaan qaabkii wanaagsaneed ee u bixin jiray mushaarkoodii. waxa uu sheegay in dadka ugu badan ee soo diraya lacagaha ay yihiin ciidamada qalabka sida, si gaar ah kuwa iyagu si weyn uu ugu doodi jiray. doodan oo mar kale soo laba kaclaysay ayaa haddana weji kale yeelanaysa, inkastoo dadka baraha bulshada intooda badan adeegsado ay si weyn iskula marayaan arrintan lacagta imika loo ururinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya amaba la doonayo in guri loogu dhiso. Shiino Cali oo ka mid ah qaar ka mid a dadka baraha bulshada aadka u adeegsado ama caanka ka ayaa ka mid ah shakhsiyaadkii ugu dambeeyay ee doonaya in ay si weyn gacan uga geystaan tallaabada lagu taageerayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya.